بسم الله الرحمن الرحيم. سفر كان عندوي وبحيا وسفر عن محارقي وفتي إلى السعودية. هذا اللي كدقوا عن سهر كدانو مدحوينه سوماليا إيوه عد إلى السعودية. سفر كاسي وحو دبت شوقا سأرقي لوضع دناع بري وتمجال لندن لسكو أركي وفتي كسعودية حكومة السوماليلاند iyo madaxdeeda kale iyo laga wada hadlaya wixii danaha labada dhinac ah tanta Somaliland kulli mar walba waxay daafacaysaa qarnimadeeda iyo goonisitaageeda iyo muxuu ahay wadanimadeeda sida ay u taagantay waddan madax bannaan ay u tahay waa tii shirarkii ka horeeyay ee London lagu wada tashaday inay Somaliland iyo Soomaaliya ay dalahaan u wada hadlaan sidii ay lixdankii isugu darsanayeen Soomaaliya iyo Somaliland in loo wada hadlo marka talaabooyinka ka horeeyay iyo wadalahda ka horeeyay ayuu kana daba joogaa oo imika kan uu noqonayaa heer madaxweynayaashu isugu yimaadaan iyo fuuday wataan marka waxaanu rajaynaynaa inaanu sii xoojino wada hadallada oo aanu qaaxino madaxbannaanida Somaliland iyo sida aanu jecelahay in dalka Somalilandna walaalahii ay aqbalaan jiritaankii madaxbannaanida Somaliland iyagana aanu sharaf iyo qiimo ugu hayno iyagana muxuu aanu markaas sida isku faahno sida ayaan u soconaa saasaan u soconaa dalka marka laga yimaado Soomaaliya iyo Somaliland yaani ku helin doona shirkaas ka dhacay beesha caalamka waxa Somaliland iyo Soomaaliya ku xidhan tahay cid kale shirkan la fadhiisanaysa ma jirto madaxweyne shacbiga Somaliland aad waxay kuugu kalsooyin waxay ugu xusuustaan halgankii dheeraay SNM oo ay taariikhda ka soo qaadatay sidaa darteed inta badan waxay isku qanciyaan inaan shaki gelin karin qadiyadda Somaliland marka hadda inta yara walaacsan waxaad odhan lahayd waxa la walacayda ka baxo waxaan jeclahay fursadda tan inaan ku qaato inaan hambalyo u diro dalka aynu walaalanahay Djibouti jaarkanahay Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo dawladdiisa iyo shacbiga reer Djibouti intaba taasoo ay maanta ahayd maalintii xorriyaddooda ku beegnayd ahayd 27kii muxuu ahay July ahayd June ahayd oo ah maalintii xorriyaddooda qaateen marka waxaan jeclahay halkaana dadka reer Djibouti iyo madaxweynaheeda iyo shacbigana hambalyo aad iyo aad u ballaaran anoo kaga wakiila ummadda shacbiga reer Soomaaliya waa mahadsantihiin
yaasinow No, no.